السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا iftiinka dhalinyarada nuuru shabaab. fadlan haddii aad tahay markaagii kugu horeysay waxaynu ka codsanaynaa inaad muuqaalka like saarto, subscribe na dhahdo, gambaleelkana furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya. mahadsanid. waxaynu qaadanaynaa cashirkeenii saddexaad ama ad-darsu thalith ayaynu qaadanaynaa. wuxuuna ku saabsan yahay kayfa iyo kam. kayfa iyo kam waa axad adawaat al-istifhaam, waa waxyaabaha lagu dhaliyo su'aalaha. kayfa iyo kam waxay ka mid yihiin waxyaabaha lagu curiyo ama lagu dhaliyo su'aalaha. waxaan ugu horeynaynaa kayfa. kayfa oo ah sidee. kayfa waa sidee. tusaale haddaan gelino kayfa xaaluk, waa sidee xaalkaagu, waa sidee caafimaadkaagu, sidee tahay, jawiga ka waran. maxaad oranaysaa kayfa xaaluk, waa sidee xaalkaagu. waxaad ku jawaabi kartaa markaa bikhayr walxamdulillaah. khayr ayaan ku suganahay ama waan fiicanahay, walxamdulillaah allaana mahad iska leh. bikhayr walxamdulillaah, khayr ayaan ku suganahay waana alle mahadi aad oran kartaa. sidoo kale kayfa waxaa laga weydiin karaa kayfa kaana darsu, darsiga ama cashirka sidee buu ahaa. kayfa sidee kaana uu ahaa ad-darsu, cashirka sidee buu ahaa. kayfa kaana ad-dars. kaana ad-darsu mufiidan. kaana ad-darsu mufiidan. cashirka wuxuu ahaa mid faa'iido leh. kaana wuxuu ahaa ad-darsu cashirka mufiidan, mid faa'iido leh. sidoo kale waxaa wax laga weydiin karaa jawiga magaalada ah ku nooshahay. tusaale haddaan usoo qaadano kayfa taqsu muqdisho, waa sidee jawiga muqdisho. kayfa taqsu muqdisho, waa sidee jawiga muqdisho. taqsu muqdisho muctadil, jawiga muqdisho waa muctadil, dhexdhexaad, kulaalna maahan, qabowna maahan. sidaan kusoo qaadanay cashirkeena bilowgiisa wuxuu ku saabsanaa kayfa iyo kam. hadeer waxaynu soo qaadanay tusaalooyin ku saabsan kayfa. haddana waxaanu qaadanaynaa kam oo ah imisa. kam su'aalaha aan ka samaynayno waxaan ka codsanaynaa daawade inaad adigu ka jawaabtid maskaxdaada, in aad adiga isu tijaabiso. mithaalka ugu horeeya waa kam cumruk, cimrigaagu waa meeqo ama imisa sano jir baa tahay. kam cumruk, meeqo jir baa tahay. mithaalka ama su-aasha labaad waa ilaa kam tushiiru saaca, goorsheegtadu imisadii ayay tilmaamaysaa, ama saacadu meeqay tilmaamaysaa, ama meeqa saac waaye. ilaa kam tushiiru saaca. su-aasha xigta ama mithaalka xiga kam qiimatu shaay ama kam sicru shaay. labadaba adeegsan kartaa qiimo iyo sicirba. shaahiga qiimihiisu waa imisa, ama qiimaha ama sicirka shaahigu waa imisa. cashirkeeni saddexaad ama darsigeeni saddexaad wuxuu ku saabsanaa kayfa iyo kam. waa axad adawaat al-istifhaam, waxyaabaha su'aalaha lagu dhaliyo ku saabsanaa. waxaan rajaynayaa darsigan inaad wax badan ka fahamteen. tan iyo muuqaalka xiga intaynu ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.